Madaxda ugu sarreysa dowladda federaalk Soomaaliya ayaa hadda u fadhiya shir degdeg ah oo ay uga arrinsanayaan arrinta Kenya iyo sidii tillaabo adag looga qaadi lahaa. Shirkani ayaa sida la sheegay u dhexeeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre, wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, safiirka dowladda Soomaaliya u joogay dalka Kenya, iyo la taliyayaasha sarsare ee madaxweyne Farmaajo. Shirkani ayaa la filayaa in goordhow uu ka soo baxo go'aan rasmi ah oo dowladda Soomaaliya ay ka qaadanayso dulmiga iyo sheegashada beenta ah ee Kenya ay sheeganayso badda Soomaaliya iyo ceyrinta safiirka Soomaaliya ay ka soo saartay dalkeeda. Kenya ayaa u muuqata mid haatan aan waxba faraha ku haynin kadib markii ay ogaatay in Soomaaliya aysan uga guuleysan karin dacwadda dhanka badda ah. Sidaas darteedna waxaa kulaylka iyo carada ka keenay dowladda Kenya guuldarrada soo wajahday. Haddaba shirkan iyo go'aanada ka soo baxa waxaan kugu soo gudbin doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan insha Allah. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir si aad u heshid wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.